okay nice waxaan isleeyahay waa array la xad waa la fahmay nooc kaloo marka oo aad loo isticmaalo oo anagana kooraska oo dhan ayadaa isticmaali doono tan waa isticmaali doonaa laakiin tanaa ka badnaan doonta intaa isticmaali doono nooca marka waxaa la associative array hadda arrayda aan samaynayna saa ujeedaan wax magac ma laha waxaan dhahaynay numbers kadib waxaa ku shubaynay 1 2 3 4 5 waxaan ma idea ma name ma phone number waxiin lama oga marka arrinkan waxaa noo xalinaaya associative array si loo sameeyo marka $sign adayna phone numbers tusaalahaan numberada dadka aruuri doonaa so again variablada ma jiro space muu samayn karta variableka okay sida hore sharciyada ku taqaani variableka waa phone numbers aa leenahay kadib phone number markaan aan arrayda calaamad sideeda u furaynaa laakiin for now isbedel aan dhacay awal hore waxaa dhahaynay 20,something now waxaa sheegaynaa waxa aan samaynayna ujeedkeena tusaale ahaan waxaa leenahay phone numberka laba qof numberkooda xariirana tusaale waxaa leenahay mcdef numberkiisa tusaalaana dhahaynaa isku dhajisi ay kugu fudaato kadib equal ma dhehayso waxaa dhehaysaa calaamadan oo $sign kadibna aan dhahay equal kadibna less than kadib waxaa sheegaynaa numberka tusaale waxaa dhahaynaa 25261 something like that comma haddaa qof kale rabtid markaadna qof kale magaciisa sheegaysaa tusaale waxaa leedahay Khalid kadib waxaa dhihi doontaa calaamadan sheegaynaa kadib waxaa dhihi doontaa Khalid lambarkiisa waxaa dhahaynaa something like that okay so numberska marka hadda maxaa ujeedaa magac waxaa sheegaynaa qofka numberkaas iskale awal hore laakiin waxaan dhahaynaa bas number x markan wuxuu aad ugu fiican yahay in wixii aad kala saaran karto oo ay yihiin wax cad oo la fahmi karo daawacid waa sidii waxaa dhihi doonaa print r kadibna waxaa baasi doonaa phone numbers so still waa sidii okay refresh aa dhihi doonaa for now mujeedaa kiiga meesha la dhahay haddaayay meeshaan waxay ahayd number 0 1 2 3 aa lihi jiray hadda laakiin markaa rabta inaad daawacdo qofkan waxaa sheegaysaa kiiga wuxuu noqonaa marka waxaa meesha u bixiso soo ujeed haddaay 0 1 2 3 ahayd haddii hal mar aan meeshaan koomada ka qaado tusaalahaan kan hoos keenan mar control v labadan commenti aan ka qaado saa isku bar dhigno kan hore muxuu ahaa fiiri 0 1 2 3 4 lagu aqoonsan laakiin kan maxaa lagu aqoonsanaa kiiga u bixisa lagu aqoonsanaa okay calaamada number ma markaan still number waa lagu aqoonsan karaa laakiin for now associative sidan ay u shaqeysaa oo ayadana very useful ah salaan ninkan ina daawaca rabaa waxaa dhihi doonaa phone number of mcdef waxaa sheegi doonaa qofka iskale numberkaas okay waxaa dhihi daawici doonaa marka numberkan 25 ka lihi daawici doonaa here we go you see haddaa rabto qofkaana waxaa sheegaysaa Khalid siisa usoo qaadanaysa waxaa leedahay Khalid waxaa dhihi doonaa refresh here we go so haddii aan rabo marka haddaayay array bush array something aan isticmaalaya marka inaa wax ku daro haddaa rabo maxaa sameynaya for now waxaan sameynayaa basically wax kale ma sameynayo waxaan dhihi doonaa phone number of qofka aan ku dari rabaa sheegaa bas tusaale waxaan ku dari rabaa Salma ka something like that kadib waxaan dhihi doonaa equal kan maadaama uu variable caadi yahay inaa ku darayna sheegana kadib waxaan sheeganaa phone number waxaan dhihi doonaa 251 something like that so refresh so ayada inaa wada daawaca phone number qof kaliya ma rabo fiir markasay noqon doonto refresh Salma kusoo darsami doonto you see that's marka waxaa lahaa associative array meeshaas aa u gudbinaa waxaa u gudbinaa loobiska iyo barnaamijyaas bila tawfiiq. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.